dagaalada Daacish u dhaxeeya ciidamada Puntland waxa ay galeen marxalad kale iyo waji kale oo aad u adag waxana ilaa iyo shalay ilaa maanta soconaya howlgalla iyo dagaalo khasaare kala duwan sababay macluumaadkii iyo wararkii ugu dambeeyay ee dagaaladaas ayaan barnaamijkan ku eegi doonaa waxaan kaloo aan idin eegi doonaa barnaamijkan aan kula wadaagi doonaa Lahore oo ahaa sargaal sare oo ka tirsanaa kooxda Daacish hogaamiyaasheeda waaweyn ka mid ahaa oo dhawaan isku soo dhibay ciidamada Puntland ayaa meydkiisa xalay laga helay xabsigii uu ku xirnaa ee Boosaaso meydkiisa iyo waxyaabaha baraha bulshada sida looga falceliyay ayaa barnaamijkan ku soo koobi doonaa iyo ninkan geeriyooday ee Daacish hore uga tirsanaa iminka laakiin gacanta dawladda ku jiray waxyaabihii uu Daacish u qaban jiray iyo taariikhdiisa oo kooban fadlan muuqaalka dug soo gaara la garay channelkana subscribe saar kuna soo dhawaada warbixinteenan waa 18 bisha March sanadka 2025 haddii aan ku bilaabo ilaa shalay ilaa maanta saacadihii ugu dambeeyay dagaalo culus ayaa ka dhacayay buraha Calmiskaad gaar ahaan toga la yiraahdo toga Miraale oo ah tog ay iminka ah meesha ugu adag ee dagaaladu ay ka soconayaan shalay waxa la soo wariyay in dagaaladii dhacay ay hayaan kuwa faraha la isaga gubtay oo aad u adkaa isla markaana khasaare badan oo labada dhinac u jireen ilaa 5 askari oo ka tirsan ciidamada Puntland ayaa la sheegay in halkaas ku dhinteen dhowr iyo 10 kalena ay ku dhaawacmeen sida markaas xogaha aan ku helnay dhinaca kale tana waxaa jirta iyadana kooxda Daacish in jab weyn la gaarsiiyay oo goobo waaweyn ay ciidamadu u sii dhawaadeen laakiin muhiimad waxay tahay baa leeyahay in kooxda la ogaaday inay halkaasi fariisi weyn ay ku leedahay oo dagaaladiisu aan kaliya maantay ama shalay aysan qaadan karin laakiin waqti qaadan karto waxaa la soo warinayaa in fariisimo iyo goobo cusub oo hor leh oo iminka indhaha lagu kala qaaday halkaasi ku yaalaan maadaama horey ay dawladdu u sheegtay gabi ahaanba dhulkii kooxdu ay haysato dhan gacanta in lagu dhigay laakiin iminka waxa soo baxaya goobo hor leh oo waxa la leeyahay firxadka kooxda ee yaacaya ee faraha badan ma aha niman iska ordahaye ee macagooba iyo aag cusub ayay leeyihiin sidoo kale waxa la yiri istiraatiijiyadda kooxdan inta la ogyahay way ka ballaarantaa ma inta ay dawladdu sheegayso oo waxa jiri kara goobo hor leh iyo dhul aan loogeyn maadaama buurahaas ay aad u ballaaran yihiin waxa la soo warinayaa inay ilaa iyo shalay adkeed oo ciidamadu ay dagaalo adag galeen isla markaana dhulkaas ay ciidamadu ku dagaalameen ay isku hardiyeen ciidamada markaas ama maleeshiyaadka kooxda Daacish taasoo sababtay baa la leeyahay in markii dambe ay ciidamadu gaareen guulo waaweyn oo wax ku oolo una sii dhawaadeen dhul markaasi muhiim u ah dawladdu inay gacanta ku dhigto oo ku yaala togaas la yiraahdo toga Miraale ee dhaca markaasi buraha Calmiskaad ee gobolka Bari halkaasna waxa la soo warinayaa in ugu dambeyn ay markaasi ciidamadu ay kaabiga u saaran yihiin goobahaasi ay dagaaladu ka dhacayeen ee ilaa iyo shalay sidoo kalena maanta ee howlgallo hor leh ciidamadu sameynayaan waxaa la sheegay dawladdu in ay markaan qorsheedu yahay sidii ay kooxda goob walba ugu muhiimsan ay uga dhigeen laakiin xog waxay sheegay in togaas hareerihiisa ay wali ku sugan yihiin saraakiil iyo xubno sarsare oo kooxda Daacish ka tirsan dawladduna ay dadaalkii ugu dambeysay ku jirta sidii halkaas gacanta ugu dhigi lahayd isla markaana goobahaas ay yihiin goobaha iminka ugu adag ee maalmaha soo socdaan la filan karo in dagaaladu ugu adag ay ka dhacaan maanta sidaan idin sheegnay howlgalla ayaa socda laakiin wax walba oo ka soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaad ku ogaan doontaan dhinaca kale haddii aan eegno waxa la soo warinayaa in uu geeriyooday oo xalay saqdi dhexe uu geeriyooday Cabdiraxmaan Shirwac oo Saciid oo lagu magacnaanaasi jiray Lahore waxa uu ahaa amiir iyo sidoo kale nin amiiro oo amiiru ahaa shabakad dilalka qorsheysan iyo qaraxyada u qaabilsaneed kooxda Daacish isla markaana bil ka hor soo galay gacanta dawladda Puntland waxaana xalay meydkiisa laga helay qolkii uu kaga xirnaa xabsi ku yaala xirada ciidanka BMBF ee Boosaaso halkaas oo ku jiray markaasi ninkaani sida la sheegay ila wareediye amni oo lagu kalsoon yahay ayaa waxay xaqiijiyeen in aroornimadii hore ee saaka meydkiisa laga helay qolkii uu kaga xirnaa markaasi xirada ciidamada BMBF ee garoonka diyaaradaha ee Boosaaso kulasha halkaas oo lagu hayay tan iyo markii uu soo galay gacanta dawladda Puntland 3 bishii labaad ee sanadkan 2025 Cabdiraxmaan Lahore ayaa maxkamad ay ku heshay hadda ka hor inuu madax u ahaa shabakad halis ah oo kooxda Daacish u qaabilsaneed dilalka iyo qaraxyada sidoo kale qorsheysan iyo dilalkaba iyadoona shabakadaasi dilalka iyo qaraxyada ugu badnaa ay ka geysan jireen magaalada Boosaaso sida la sheegay waxaana u badnaa oo ay ka fulisay magaaladaasi dilal loo geystay ganacsato dad shacab ah iyo sidoo kale mas'uuliyiin dawladeed sida horeyba loo sheegay
waxaana bishii June ee sanadkii 2022 ninkan isaga iyo kooxdiisiba lagu xukumay dil toogasho ah kadib markii ay dowladdu maxkamadda sheegtay inay ku cadaatay inuu geystay falal kaas lagu eedeeyay iyo dilalkaas iyo sidoo kale qarxiyadaasi balse Lahore ayaa isaga oo maalmo kadib hadlay waxa uu ka hadlay xukunkii maxkamadda wuxuuna maalmo kadib waraysi uu bixiyay ku dafiray ama uu ku inkiray dambigaasi lagu helay dowladda isagoona sheegay in arintaasi ay tahay mid barabuganda ama midaan sal iyo raad toona lahayn isla markaana uusan gelin wax dambi ah isagoo dhammaanba eedaybihii loo soo jeediyey iyo dilkii lagu xukumaba dafiray inkastoo uu ahaa nin ku sugan dhulka buuraha leh ee gobolka bari haddana deegaano ka tirsan goobaha lagu dagaalamayo gaar ahaan Qandala ayaa lagu qabtay ninkaani maalmo ka hor ama sidaan sheegnay bishii labaad ee sanadkan isagoona kadibna isku soo dhiibay markii la soo dhiibay kadibna loo soo wareejiyay Boosaaso halkaas oo ku xirnaa laakiin tan iyo xarigiisii waxay dad badan isha ku hayeen ninkan iyo siraha laga heli doono iyo sida ay dowladdu xog iyo waraysi uga heli doonto faahfaahsan iyo istaraatiijiyada iyo sidoo kale siraha uu kashifi doono ee kooxda Daesh ku saabsan waxay dad badan ay sheegayeen inuu kashifi doono ama soo bandhigi doono marka laga yimaado ajaanibta dad fara badan oo Soomaaliyeed oo kooxda la shaqeyn jiray ama u qaabilsanaa markaasi dhinacyada kala duwan ee markaasi kooxda kala shaqeyn jirtay waraysigiisa iyo xogaha uu soo bandhiga mar walba dadka reer Puntland isha ay u taagayeen ama u dhigtaagayeen ay raahdeen iyadoona ugu dambeyn xalay ama saaki waa barigii dambaalka soo baxay oo ahaa in ninkaasi uu geeriyooday sida uu ku geeriyooday wali dowladdu kama hadlin mana sheegin lamana oga kaliya waxa la ogaaday in waa saaki suxuurtii kadib goobtii uu ku xirnaa meydkiisa laga helay laakiin waxa dowladda loo soo jeedinayaa talooyin kala duwan oo aad u badan oo ku saabsan ninkan maadaama dadku ay ka filayeen wax fara badan maadaama Soomaalida marka la eego kuwa ugu sarsareeyay uu ku jiray ee kooxda xogaheeda ayaa la dagaalamayo in ninkan xogta badan la dhintay haddii ay dowladda xog ka heshayna ay sheegto sidoo kalena sida loo dilabteeda baaritaano lagu cadeeyo dadka baraha bulshada siyaabo kala duwan uga hadlayaan dilkiisa qayb ayaba dowladda u saarayo dowladda ayaa ka dambeysay kuwa kale waxay leeyihiin inuu asagu isdilay way dhici kartaa waxyaabo kale laakiin oglaayay iminka ma cadda xog sax ah oo cadeynaysa ninkan Lahore ee sargaalka saraha waxyaabaha lagu helay waxa kamid ahaa intii uu maxkamadda hore ay ku xukuntayna kamid ahaa hadda ka hor in uu isku dayay in wafti ama kolonyo ama wafti uu hogaaminayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku sii jeeday Boosaaso inuu qarax u dhigay wadada ama kontaroolka dhinaca Garowe ama Qardho ka yimaada xilligaas oo madaxweynuhu ka badbaaday isku daygaas laakiin qayb ka mid ah ilaaladiisii iyo waftigiisii ay dhimasho dhaawac ka soo gaareen Lahore waxa la sheegay inuu ahaa ninkii qorshahaas maleegay isla markaana dilkaasi madaxweynaha u maleegay iskuna dayay inuu dilkaasi markaasi goobtaas ka geystay laakiin ugu dambeyn arintaasi madaxweynuhu waa uu ka badbaaday inkastoo ay askar ka tirsan ciidamada Puntland iyo waftiga qayb kamid ahaa ay ku dhinteen mar walba Lahore iyo dalkiisu waxa ay maanta ahayd xogta ama warka ama hadalhaynta ugu weyn ee deegaanada Puntland weeyaan ayadoona dilkiisa iyo macluumaadka uu ninkan hayay uu la dhintay ay dadku si weyn uga walaacsan waxa dadka badankood leeyihiin haddii doonto dowladda soo bandhigina waxay ahayd dowladda haddii xog ka hayso xogtiisa inay markaasi ay ahayd mid u muhiim ah dowladda laakiin dadku waxay leeyihiin hadduu la dhintay wax walba oo xog ahaa oo ninkaani dagaalka muhiim u ahaan lahayd istaraatiijiyada dowladda asagoo ay kayd u ahayd oo sidaas ugu dhintay waa khasaaro iyo jab kale oo dowladda ay ku tahay waad santiin akhyaaray macluumaadkan aan ku soo koobayna wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo sidoo kale geerida Cabdiraxmaan Lahore sargaalkii Daesh ka tirsanaa ee meedkiisa xabsiga saaki Boosaaso lagu arkay ilaa halka dad la soo gaartay muuqaalkan la garay channel-kana Facebook dabcan YouTube-na subscribe saar waa ma santiin